biyaha wabiga hadii aan ka hadlo sida aan la socono wabiga waxa ku dhow magaalada siwajkeeda ama musqulaha ama maxaan ku radaa isha drainage bana wabiga ku furan hadii oo wabiga biyihiisa ay hoos u dhacaan waxa imaanaya in ay oo yaraado dhaqaaqa biyaha ay dhaqaaqayaan inay yaraadaan hadii dhaqaaqa oo yaraado waxa badanaya waxa haraya biyo deposit ka oo wasaqdahay ama haraadiga ayaa biyo way firiisanayaan markay firiistaan maxaa badanaya jeermiska badanayo bakteeriyada badanayso hadii ay bataan maxaa imaanayo dadkii wabiga toos ku cabayo waxa ku imaanayo cuduradan maxaan ku radaa la xiriira waterborne disease loo yaqaano waana waxa ugu badan oo hadda mataqaana magaaladan Baladweyne ka jira Assalamu alaikum to my Somali brothers and sisters. Garma Furan Kusuduwada. It's Hussein, the director of Nils Furniture Design. We have an amazing offer now. This Turkish tea set, literally the set for only £3. Hadii aan baad caafimaad waxa kale dad ku wacyigelinaa inay mar kasta ka forjignaadaan waxyaabaha keeni kara soo noqoshada shubanka iyo dhibaatada carruurtooda ku imaanaysa taas sabab u tahay waxa ay keensadeen maxaa waaye wabiga marka kor istaagto waxay arkaysaa wasaqda ugu badan inay tahay wax lagu shubay waxa kaloon ku wacyigelinaa dadka qashinka ku shubaya wabiga maqaaxida qashinka laga soo aruuriyay ama banaanka laga soo magaalada laga soo aruuriyay ku shubaya inay fogeeyaan oo meelaha godadka loo qaday qashinka inay geeyaan tala ahaan annaga waxaan leenahay isha dadka inay ka fogaadaan inay wabiga ku shubaan waxyaabaha wasaqaysan in dhibabka musqulaha wabiga ku furan yani in dhanka loo wareejiyo oo sabtaangi banaanka laga sameeyo banaanka ay ka sameystaan hadii qofku ka fikiro dhibkaani geysani wasaqda ku shubaysa halkaan ay saameynaysa carruurtiisa saameynaysa isagay saameynaysa qoyskiisa saameynaysa waxa lamida maqaaxidaha musqulaha sameystaan wabiga qarkiis ku yaalaan musqulaha ay wabiga ku shubayaan wax badan ama dhibaato soo wajista Ano kuchifa